بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ينكو دعين هذا الكا مركان تبرهي تلمهين هدون تلهينا تبرمهي موضوع انه عنوان كيسو واسداس dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu abuuray wuxuu caloosha hooyadood ka soo saara iyagoo ilmo ah oo xoog iyo garaad iyo maal waxba aan wadan qaar waxay ku dhintaan yaraan qaarna way koraan ilaa ay noqdaan kuwa xoog badan kadibna tabartoodu way soo yaraataan ilaa ay gaboobaan oo ay noqdaan sida ay adduunyada ku yimaadeen awal kuwa aan lahayn tabar iyo garaad midna kadibna way dhintaan u fiirso daawade waktiga uu qofku uu wax badan wax soo saar ugu badan yeelan karo waa intuu dhalinyarada yahay wax soo saarkaasu ha noqdo cibaado oo ilaahay u cibaadaysto waxbarasho shaqo dagaal iyo wixii lamidaba hadduu qofku ilaahay caafimaad siiyo muddadaas waxaan ku qiyaasi karaa laga bilaabo 20 jir ilaa 55 sano jir uu qofku ka gaaro intaas kadibna qofku wuxuu bilaabaa hoos u hoobasho inuu hoos u hoobto oo tabar yareeyo hadday arrintu sidaa kuugu caddaatay maxaa kula gudboon walaalkayow waxaa lagaa rabaa in muddadaas aad ka faa'iidaysato waxa ugu badanna aad qabsato haddii aadan saas yeelin oo waktiga ku lumisid hurdo cayaar balwo iyo wixii la mid ah ma waxay kula tahay inaad xooggaas qabriga ku weeshan doonto oo barkan doonto waxaan shaki ku jirin in inaad markaas aad dawarsi iyo shaxaad aad ku damayn doonto cibaado badanna ood horumarsatayna ayan jirin saasa aad ku seegto danahaagii adduunyo iyo tii aakhiraba markaad tabar dhigto oo weynaato oo gabowdo waxba ku tari mayso qoomamo haddaan sidaas samayn lahaa haddaan fursaddaa ka faa'iidaysan lahaa haddaan kuwaas ka hari lahaa meeshaan xunuun maanta joogo ma joogeen waxba tari mayso nabigeenna calayhi salaatu wassalaam ayaa inooga digay inaynu low kelmadda la yihahdo isticmaalno oo haddii macnaheedu tahay haddayse ahaan lahayd nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam ha oranina low kaana kida lakaana kida fa ina low camalu taftaxu camal ashaytaan nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam ha orana low hadday se ahaan lahayd saasay ahaan lahayd hadday sidaa noqon lahayd saasay ahaan lahayd oo hadda aan waxba laga qaban karin oo waktigeedii tegey maxaa yeelay low waxay furtaa shaqada shaydaanka ayay furtaa intaa markaan kasoo gudubno walaalkayow waxaan kugu waaninayaa inaad caqli yeelato oo wax qabsato intaad yar tahay intaad xoogga leedahay aada wax qabsato si wixii aada yaraantii qabsatay oo samaysatay oo shaqaysatay oo cilmi ahaa oo maal ahaa oo dad ahaa iyo wixii la mid ah aada ugu tashato markaad weynaato maxaa yeelay markaas xikmad iyo talaba waad haysaa oo talona kuguma yara markaas xikmadane kuguma yare waxna horaad usoo shaqaysatay waad u tashanaysaa dhug yeelo marka oo yuusan waktigu kaaga lumin hadda waktiga aada haysatid yuusan kaa lumin intii aada xoog leedahay waxaa la yidhaahdaa oo culimada hormariya cilmigan horumarinta bini aadamka ka hadla ay yidhaahdaan shalay waa tagtay shalay wallad oo waa shalay berina lama hubo inaad gaaraysid
maxaa kuu soo haray? waxaa kuu soo haray maanta. waliba maanta inna waa kaa tagtay, inna waad haysataa. kolka maanta ka faa'iidayso oo maanta wax qabso oo maanta ku mintid inaad maanta wax qabsatid. dad kale waxay qabteen wax kuma aha. marmarka qaarkood qofku wuxuu yidhaahdaa annagoo saasa reer ah, annagoo reer oday hebelna dhalay, annagoo bahdaasa, dad buu isku daraa. waxaasoo dhan wax tari maayaan. waxa wax taraya waa maxay? waa wixii adigu shaksi ahaan aada u samaysay. sababtoo ah berri wax waa la kala soocanaya. oo haddii maalan carruurtu isku aabe ahaayaan oo aabihii dhinto, haddii wixii waa la kala soocanaya, dhaxal baa imanaya. marka nin walba dhinac buu aadi. marka adigu haddaadan awal khibradna kasban, shaqana aadan oqoon, dadaalna aadan lahayn, xikmad aad kasbatayna ayan jirin, suuqii aadan baran, cilmi kale adduunyo iyo mid aakhiro aadan ziyaadsan, hadda marka xataa wixii lagu siiyo ad dhaxashidba xataa muddo kula joogi maayaan. muddo kula joogi maayaan. oo waxaan xasuustaa qiso dhacday nin oo Napoleon Hill la yirahdo buu qoray cajiib badan horumarinta bini aadamka. wuxuu leeyahay $100 oo kale baa 2 wiil u dhalay oo jaamacado uga jira meelo banaanka ama mid walba bil walba u diraa. hadda anna waa shaqaynaya ogow 8 saacadood baan shaqaynaya, iyagana $100 pocket money baa loogu diraa. marka way ila yaabi jireen $100 see ugu noolaanaysa. ilaahay wuxuu qadaray inuu midkoodna waasho, midkoodna xabis ku abaado. marka waxaa daroogo iyo balaayay barteen. sababtoo ah ma ayan baran say u shaqaysan lahaayeen, say lacagta u dhaqan lahaayeen, say wax u samayn lahaayeen. marka kuwaasoo kale ha noqonin. waktiga ka faa'iidayso. noqo qof waktigu qiimo la leeyahay. noqo qof aan berri shallayto aan ku damaynin. intaasaan warkayga kusoo koobayaa. والله سبحانه وتعالى أعلم.